farguri qurux badan taaj dahab ah oo si cajiib ah loo sameeyey iyo qoraal diimeed ayaa ka mid ah alaabaha laga soo xaday Itoobiya intii uu socday dagaalkii Magdala Abriil 1868 kayd boqortooyo iyo mid diimeed ayaa la soo qaatay markii ciidamada Britain ay qabsadeen qalcadda buurta ee boqortooyadii Theodora labo taasi oo kadib noqotay Abyssinia. tani waxay jawaab u ahayd dad reer Yurub ah oo boqortooyadu xiratay. hadda rajo ayay qabaan kuwa u dagaalamayay in kaydkan taariikheed loo soo celiyo. markaad eegto dhanka taariikhda agabka madxafkan yaalla ee aanu iminka Itoobiya ku siinayno si amaahana ama ay u haysan karayaan muddo dheer waxa weeye sharciyan arrinkeedu arrin murugsan oo u baahan waxyaalo badan qaybo kale adduunkana saasaan ula macaamilay marka waxaanu sinay sidan waa sida ugu fudud. dowladda Itoobiya waxay rasmi u dalbatay in loo soo celiyo kaydkan taariikheed ee Magdala 2007 waa loo diiday in deyn lagu haysto. waxa ugu horreeya ee soo dhoweeyey waa safaaradda Itoobiya ee London oo madxafka kala shaqaynaysa bandhigan. deynta wax cusub ma ahan, waa bilow fiican. waxay bilow u tahay sii wadidda wadaxaajoodka labadeena dal u dhexeeya ee la xiriira alaabta taariikhiga ah. inkastoo dowladda Itoobiya ay dalbanayso in qalabkan dib loogu soo celiyo, haddana madxafkan oo meelo kala duwan ka soo ururiyey wuxuu ku haystaa dayn muddo dheer ah, xiriirna waxa uu la leeyahay dowladda Itoobiya. baaqyada la xiriira in kaydkan alaabaha taariikheed la celiyo ayaa soo socotay sannado balse maysan miro dhalin. waxaan filayaa in ay soo jeedin aad loo soo dhoweeyey tahay. waxay ila tahay haddii aanay suurtagal ahayn in loo soo celiyo kaydkan ay haysteen hay-ado Britain ah, in wax lagu farxo ay noqonayso in loo diyaariyo dayn muddo dheer ah. waxaan filayaa in si weyn markaasi ay u soo dhoweyn doonaan dadka reer Itoobiya. in wakhtigan uu socdo bandhig caynkan ah wuxuu iftiiminayaa dhibaatada dalal badan oo adduunka ah oo weli u dagaalamaya in loo soo celiyo qalab taariikhi ah. Cusmaan Cabdi Xasan, BBC, London.